madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaan Axmed Madoobe oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaasina uga qayb galay shirka madasha wadatashiga qaran ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubba sida warbixin amuurtaasi ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Axmed Caydi Diiriye madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo saddexdii bari ee u dambeysay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya halkaas oo uga qayb galay shirka madasha wadatashiga qaran ee ayaha waddanka Soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag wasiir xubno ka tirsan baarlamaanka Jubbaland iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne Axmed ayaa inta kadib saxaafadda kula hadlay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaana uu sheegay in shirka ay uga qayb galeen magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya loogana hadlayay nooca doorasho ee waddanka Soomaaliya ka dhici karta sanadan aan ku guda jirno ay gabi ahaanba isku fahmi waayeen madaxda dawladda Soomaaliya iyo waliba kuwa maamul goboleedyada inta kadibna ay soo dhaxgashay beesha caalamka isla markaana go'aanka dawladda Soomaaliya ay qaadatay beesha caalamka waxaan maray wadatashigaas dadku wax badan bay ka sugayeen gaar ahaan reer Kismaayo ama reer Jubbaland oo lahaa gogashii hore lagaga hadlayay lana sugayay waxa ka dambeeya dhici doona iyo gogashaasi waxay ay dhashay waxaan rabaa inaan u cadeeyo dadka waxaan oran karaa waan ku guul daraysanay hogaamiyayaashii Soomaaliyeed ee isugu yimid madashii Kismaayo inay kaga tashadaan oo ay ka go'aan gaaraan mustaqbalka Soomaaliya waxa uu noqonayo qofku inuu sheegto inuu fail garoobay oo arintaas ay nasiib darro Soomaaliya u ahayd ceeb ma aha arintaas waxaan leeyahay waan ku fail garownay way noo suurtoobi weyday aase hogaamiyayaal Soomaaliyeed inaan meel saaro oo aan meel dhigno oo waxay dadku naga sugayeen aanu nidhaahna waxaasaanu ku soo heshiinay waxaana keenayay oo sababtu ay ahayd iyada oo shayga asalka ahaa ayna ahayn waxa laga hadlayay qof waliba laga yaabo inuu ka hadlayay wax deegaankiisa ay u soo direen wax dadku ka turjumaya ay soo fareen iyo wax dadku ay ka hadlayeen taa waxay noqonaysaa markaa haddii ay noqoto hogaamintu inay raacdo dadka iyo waxay leeyihiin iyo dareenkooda waxaa lumaya hogaamintii annagoon waxba ku heshiinin baanu ka tagnay sidaasaa waxaa la isugu yeedhay Muqdisho iyadoo ay noo yeedheen international community-ga 4.5 haddii la iska buuxiyo iyaguna talixaadoo kale ay noqon karaan reer Jubbaland waxay ku codeeyeen oo ay doorteen aqalka hoosena in lagu soo dhiso district degmo aqalka korona in lagu dhiso gobol sidaas waxa ay geeyeen dhanka kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa ka hadlay ka bixitaanka ciidamada Kenya ka baxeen meel ka mid ah deegaanada Jubbaland asagoo sheegay in hawlgallo cusub oo guud ahaan baa lagu xoreynayo deegaanada imika ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab uu dhawaan bilaaban doono ka gudbo arrinta ciidamada baxaya waxaan arkayaa in walaahow badan iyo KDF xagga u baxday bulugud baa laga baxay xagga laga baxay diyaar garow baa jira hawlgal loo diyaar garoobay taa macnaheedu waxa weeyaan in la isfudaydiyo dhufaysadii badnaa sanadaha lagu jiray laga baxo qofka wixii culus aan loo baahnayn in furimo la geeyo dib loo soo celiyo ciidan hawlgal iyo operation buundooyinka lagu xoreynayo qaadaya barnaamijkaas la bilaabayaa waqtiga ugu dhaqsaha badan hadalka madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo shirka madasha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho qodobo laga soo saaray walow maamulka Puntland uu si adag uga soo horjeestay qodobada shirka laga soo saaray Axmed Caydi Diiriye Somali Channel magaalada Kismaayo